qabanay oo ah dhalinyaradu is caawintay si ay uga badbaadaan ilaahay uga badbaadin kare dhibaato iyo xarig iyo wixii la halmaado. marka gaar ahaan markaan waalidiinta la hadlo mas-uuliyadayna wada saaran waxay tahay inaan ubadkeena ilaahayna siiyey in aan dhaqanka iyo diinteenaba baro. taana waxay keenaysaa markaa in dalka hadda ay ku nool nahay oo gaar ahaan aad ku nooshin oo Denmark ah in laga faa'iidaysto ha noqoto xag waxbarasho, xag shaqo iyo xag mustaqbal intuba si markaa hadwaa la idmo qofka markaa doonayo inuu dalka dib ugu laabto waa hadda wanaag ku kordhin kara dalka. dowladda Denmark oo runtii mudan ammaan taasoo ah sida u soo dhaweyso waa la socotaan dad Soomaali u fara badan oo dalkan ku nool. dowladda dalka Denmarkna hadda wuxuu ka mid yahay dalalka Yurub sida gaarka loogu ammaano soo dhaweynta dadka qaxootiga ama ethnic minorities la yiraahdo. dowladda Denmark u dheeda waxay faa'iido ugu jirtaa in gaar ahaan Soomaalida oo haddii aan qaldanayn 2005 mar tirakoob lagu sameeyay 17,000 googo hadda kulleeta waxaan qiyaasay inay ka badan yihiin in ay u kordhiso fursadaha ama ha noqoto waxbarashada ama shaqada iyo طبعا waxay fududeen oo kale in gaar ahaan dhalinyarada la baro dhaqanka Soomaaliyeed fursadda la siiyo. waxaan la socdaan soonahay inay dhawaan soo baxeen shuruuc u ogol in waalidiinta iyo carruurtooda iyo iskuulaadkaba intaba in afkooda hooyo lagu baro. sidoo kale in la fududeeyo inta la fududeyn karo barashada diinta Islaamka si looga hortago fasiraadda sida xun loo fasiro ama danaha kale oo gaarka laga leeyahay oo la hadda kulleeyta waxaan u maleynayaa dadku kama dhaga yareeyay hadba hadalun baa nagu soo duulo oo dhawaan maaragtay miidyada Danishka aad looga hadlay. runtii ma wanaagsana in ummadda inta la eg lagu shaabadeeyo waxaan wanaagsanayn. waxaan ogsoonahay in dowladda Denmark ay tahay dowlad qani dowlad horumartay dowlad leh nidaam kala duwan ha noqoto maaragtay si wax looga hortago dambiyada iyo maxkamado. طبعا qofkii dambi galay waxa way sharci baa jira sharciga qabanaya laakiin in lagu nisbeeyo ummad iyo diin intuba waxaan u maleynayaa dowladda Denmarkna faa'iido ugu jirto haddaan Soomaaliyeed nahay naguna faa'iido ugu jirto. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.